halku dhiga madashan maanta la isku arkay ee ka dhacday gudaha magaaladan Boorama waxay ahayd bulshooy ilmaha baahida gaarka ah qaba wax buu baran karaa. madashan waxa soo qaban qaabisay ururka Saase waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan Awdal, mas'uuliyiin ka socotay hay'adda dhowrista carruurta ee CCBRS magaceeda loo soo gaabiyo, arday, waalidiin iyo carruur kala duwan oo baahiyo gaar ah qaba. madashan ugu horeen waxa ka hadashay Marwo Ubax Ali Maxamed oo ah mas'uuliyadda ururkan Saase u qaabilsan carruurta baahiyaha gaarka ah qaba, waxayna faahfaahisay ujeedada kulankan iyadoo hoosta ka xariiqday inay carruurta curyaamiinta ah ay wax baran karaan isla markaana loo baahan yahay in bulshadu ay iska kaashato sidii carruurta curyaamiinta ah loo geyn lahaa goobaha waxbarashadu ay ka socoto. anigu waxaan ka gudoomiyahay ciyaalkan special needs marka ciyaalkan waxaan halkan xafladan aan soo bandhigayaa dawladaha iyo hay'adaha si ay wax ugu qabtaan hadii awood u leh ee kusayso inay wax u qaban karaan ciyaalkan baahiyaasha gaarka ah qaba oo kala duwan baahidoodu oo naaqadoodu qaar saddex ay ka badan yihiin qaar laba ay yihiin. marka waxaan rajaynaynaa in markaan ku soo bandhignaa barnaamij hawlahan ku saabsan ciyaalka inta cidii awood u leh inay wax qabato ay wax noo qaban karto. sidoo kale Marwo Faa'iiso Sheekh Saciid oo ka socotay hay'adda dhowrista carruurta ee CCBRS magaceeda loo soo gaabiyo oo iyaduna madashan ka hadashay ayaa waxa ay muujisay dareenkeeda kulankan ku aadan. shadeenu intii wax cunaysay intii ordaysay waxay Soomaalidu tiraaniman hadin habartii qadisay intii waad aragtay iskuulada lagu tacaalayaa inkastoo jira carruur fara badan oo dayaca haddana bulsho fara badan oo laga yaabo wax kaliya maqan tahay maskaxdiisa looga faa'iideysan lahaa in wax badan dadka tiri lahaa in guryaha dhexdooda lagu qarinayo oo waalidku ku qarinayo dhaqan baa loo qariyaa caafimaad baa loo qariyaa sumcadda qofku ilmihiisa iska sarreysiin carruurta u qariyaa haddii maanta la yidhaahdo carruurta baahida gaarka ah qabtaa wax la siinayaa halkaas soo tuba kala badh Boorama soo dareeri waan xaqiiqo jirta. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor Ahmed Cigari Raash oo isna gabagabadii madashan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in carruurta curyaamiinta ah ay wax baran karaan isla markaana loo baahan yahay in bulshadu ay iska kaashato sidii carruurtaasi loo geyn lahaa goobaha waxbarashadu ay ka socoto. waxa uuna hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisa waxbarashada ay kaalin muuqata ka ciyaari doonto sidii ay carruurtaasi ula jaanqaadi lahaayeen carruurta dhigooda ah ee goobaha waxbarashada ku sugan. walintii waxbarashada yaa wax loo bilaabi karaa waayo halkan baan ku haynaa dhismihii qalabkii waxbarashada waanu haynaa buugkii waanu haynaa qalinkii waanu haynaa bilaasha macallinkii waanu haynaa bilaasha marka waxaa naga dhiman carruurtii oo la soo joojiya runtii oo sidaa qofkii wax baran karaa loo bilaabo kii caafimaad dee loo geynaya loogu tababaro. عبد الفتاح أحمد هاد وناج نيوز مقالة بورما.